إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت موت بين وذا جوجنا عاو maanta waxa geeriyooday galabta Suldaan Bare Xaaji Xuseen Caraale Ilaahayna xariisti jannaha ka waraabiyo salaadiinta farakutiriska ee ku suntan nabadda iyo halganka ayuu ka mid ahaa waxaan leeyahay Ilaahayna xariisti jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo shacbiga Soomaaliland khaasatan shacbiga reerkiisa samiriye iman Ilaahay ka siiyo Ilaahayna xariisti jannaha ka waraabiyo ubadkiisii ooyihiisii asxaabtiisii iyo saaxiibadii oo dhan oo Mujaahid Maxamed Kaahin gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo agtaagan oo uu ka mid ahaa waxaan leeyahay Ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiyo Ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa geeri xaqa oo aynu ku wada xukumanahay waynu kala horeynaynaa waxaanu leenahay dhamaanteen samiriyeeman Allah inaga siiyo Suldaan Bare Xaaji Xuseen Caraale wuxuu ahaa suldaanada kuwii aan islahaa deemka mala intii harqada lahayd boo kuwii ugu dambeeyay buu ka sii mid yahay Ilaahay naxariistii ka waraabiyo qabriga Allah waasiyo qoyskii qaraabadii ehelkii asxaabtii dhammaan ummadda reer Soomaaliland samiriyeeman Allah ka siiyo waxa aynu wada joognaa taasoo kale inana waa ku cibro qaadasho insha Allah waxa kaliya ee maanta aynu tari karaa waxa weeye inaynu ducayno waynu ducaynaynaa beritoolna insha Allah waynu soo soobatay godkiisa aynu geynaynaa dhammaanteenba geeridaas tiiraanyada leh oo aynu murugadeeda muujinayno si qaran baynu aasaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وعاصمة جمهورية الصوماليلاند قلبت كوغيريودي مرحوم سلطان بره حاج حسين عرالة وكمد أها مدح دقميت كجمهورية الصوماليلاند kuwooga ugu facaweyn leh taariikh dheer lahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhismihiisii iyo nabadeyntiisii iyo taabagalnimadiisiiba ka soo qayb qaatay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka uu horeysa waxaynu u weydiinaynaa naxariis waasica tarakadii uu ka tagayna Ilaahay samir kaamilaha ka siiyo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ducahaana qoysaskii iyo zawjooyinkii uu ka tagay Ilaahay samir jamiila Allah ka siiyo waxaad ogtihiin marka aasaska sidaas oo kale ay dhacaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ayay waajib ku tahay in waxa weeye loo dhanaado tacsidiisa habmaamuusku lahaana loo dhameystiro Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinta bari ah ayaynu janaasadiisa salaada duhur xabaalaha masallaha lagaga tukan doona Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaynu u weydiinaynaa inuu jannatul firdaws al-a'la geeyo qaran ahaana maanta waxa halkan taagan wasiirkii arrimaha gudaha ahna gudoomiye xisbiga kulmiye xubnaha golaha wasiirada barasaabka caasimadda maayarkii hore xogayaha dawladda hoose dhammaanna waxa xilligaasi loo taagaya waxa weeye in la galbiyo la qorsheeyo aaskiisa haddii Ilaahay raado maalinta barita ah uu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sagootin doono waxaynu leenahay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland samiriye iimaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun إنا لله وإنا إليه راجعون سيدي مدحدي igu horeysay halka joogtay ay u sheegtay maxaan ku raahday galabta halkan ku geeriyooday magaalada Hargeysa marxuum Suldaan Bare Xaaji Xuseen Caraale marka ugu horeysa qaranka reer Soomaaliland dhamaantii bahdii soo halgantay oo ka qaybta ahaa iyo gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday intaba waxaan leeyahay dhamaanteen ba Ilaahay samiriye iman haynaga siiyo Suldaan Barena waxaynu ugu ducaynaynaa in Ilaahay naxariista jannatul firdaws al-a'la in Ilaahay ka waraabiyo Suldaan Bare salaadiintan qaranku ka mid ahaa waxa ka mid ahaa dadkii soo halgamay halgankii dalkan qaybtiisa weyn ka soo qaatay waxa uu ahaa dadkii nabadeynta
iyo dhidibba u aasidda qarannimada reer somalilandna qaybtiisa ka soo qaatay. geerida waa la wada marayaa, taasaa isagana galabta u timi. waxaanu leenahay markaa naxariistii jannada allah oo naxariistii jannada allaha ka waraabiyo. qoysaskii iyo ubadkii uu ka tegey iyo caa'iladdii uu ka tegey waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan haydi ka siiyo, isagana naxariistii jannada ha ka waraabiyo. mas-uuliyiintii hawshan ilaa iyo maanta qabanqaabinaysay oo imika halkan joogta oo ka mid yahay guddoomiyaha rugta ganacsiga, bare saabka gobolka, xogeyaha dowladda hoose iyo rag kaloo fara badan oon imika halkan taagnayna oo maanta qabanqaabadii aaska xaafad ahaan u diyaarinayana iyagana waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxay iclaamiyeen in berrito salaada duhur lagaga tukanayo xabaalaha masallaha. halkaasaa dowladda somalilandna ka qayb gelaysa, madaxweynaha iyo dhammaan golaha wasiirada iyo golayaasha kale ee qaranka. caawadanna madaxweynaha ragga halkan taagan oo hadda naga maqan yahay wasiirkii tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta iyo intayda halkan joogto madaxweynuhu hogaaminayo na qoyska iyo caa'iladda iyo gurigiisa baan soo marnay. berritana aaskan ka wada qayb galaynaa. waxaynu ku xasuusanaynaa bare taariikhdiisii halganka iyo tii nabadgelyada ee dalka uu ka lahaa. ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo, innakana samir iyo iimaan haynaga siiyo, caa'iladdiisiina samir iyo iimaan haynaga siiyo. qolada qabanqaabinaysana hawshii qabanqaabada ay gashayna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. ilaahay naxariistii jannada suldaan barre ha ka waraabiyo, ilaahay suldaan barre naxariistii jannada ha ka waraabiyo. qoyskiina waxaan leenahay samir iyo iimaan haydinka siiyo, cawal khayr qabana allah haydinka siiyo. intaasaynu ku badbaadinaynaa, naxariistiisii jannadana ilaahay baynu weydiinaynaa.